dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta xafiiskiisa ku qaabilay mudane Atul Khar oo ka socda xogayaha guud ee qaramada midoobay xafiiskiisana uu taageero siiyo howlgallada ay qaramada midoobay ka wada dhammaan dunida. madaxweyne Farmaajo iyo mudane Atul waxay ka wada hadleen sidii xafiiska gaar ahaan u hoostaga waaxdiisa qaabilsan taageerada dowladda federaalka Soomaaliya loo yaqaan UNSOS sidoo u dardargelin lahaa taageerada uu siiyo ciidamadeena qalabka sida oo howlgallo baaxad leh ka wada qaybo ka mid ah dalka sidii looga sifayn lahaa argixisada iyo sidoo kale xafiisku wuxuu taageero siiyaa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM oo ciidamadeena ka garab dagaalamo nagalana shaqeeya sidii aan u soo celin lahayn amniga guud ee dalka. waxay kale ka wada hadleen dhanka shaqo abuurka. United Nations ama qaramada midoobay waxay ka wadaa howlgallo baaxad weyn wadanka waxaanan madaxweynuhu uu kala hadlay mudane Atul sidii fursad loo siin lahaa shaqaalaha Soomaaliyeed loona kordhin lahaa tiradooda shaqooyinka ay qaban karaanna inaan dibadda looga keenin dad ajnabi ah fursadda iyo mudnaantana la siiyo. waxaa kaloo ka mid ahaa oo laga wada hadlay dhismayaasha qaramada midoobay ee wadanka ka sameysay intooda badan waxay u badan yihiin kuwa aan waarayn oo muddo yar lagu shaqayn kara taana in loo bedelo in dhismayaal waara oo dhaxal u noqon kara ummadan oo markii howlgalladoodii iyo howlahooda ay dhameeyaan u hari kara bulshada Soomaaliyeed oo looga faa'iideyn kara inay dalka ka dhisaan. waxaa kaloo ugu muhiimsanaa ilaalinta deegaanka iyo waxyaabaha la xiriira in aad loo xoojiyo. waxaana kulankan uu ahaa runtii mid dhammaan waxyaabihii looga wada hadlay miro dhal ahaa. waxaa kulankan ka qayb galay oo madaxweynaha ku weheliyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.